عشركان وعشركان إنه سعودي أها learn how to use the window PowerShell IC سان نولو سعودان عشركان وعشركاني لباتني سدحاد ويان عاو حنكها لنا سيدي نيو سكريبت لو قري لها سكريبت لو قري لها أما سكريبت halka waxaan ku qoray arkaysaan I can create in a number of environment anoo isticmaalayo waxa la yiraahdo notepadka waxa weeye waxaan hadda isticmaalayo weeyaan halkaas haddaan tago halka ku taab garaysid notepad ayaa ku soo baxayo aad ku qoran kartid message-ka ama taxiga aad rabtid waxaan isticmaalaynaa window PowerShell IC ayaan isticmaalaynaa oo loo soo gaabiyey IC waxaa loo soo gaabiyey integrate script environment loo soo gaabiyey including the first waxaan haddana bilaabaynaa scriptka markaan qorno waan garaynaynaa scriptka inuu shaqaynayo in kale kabacdina waxaan samaynaynaa wax la yiraahdo execute wax la yiraahdo samaynaynaa ku dheeraa maayo execute markaan waxaan ka hadli doonaa cashirka kale cashirkan waa cashir gaaban waaye halkaas ayaan hoos u dhiganayaa marka hore waxaan qaadanayaa window power tab completion isticmaalayaa oo arkaa tab completion oo ka soo hadalay cashirkeennii hore ayaan isticmaalayaa tab completion markaan isticmaalo ilaa aan ka tegayo child log ama child item ayaan rabaa inaan script cusub ku qoro ku tuso sida script cusub loo sameeyo cashirkaana maanta waxaa weeye script photo inaad script qori kartid ama script cusub aad samayn kartid halkaa waa arkaysaa waxaan leeyahay turn waan dhahayaa ama enter waxa loo yaqaano halkan hoose ayaan imaanayaa sidoo kale waxaan ku qoranayaa CLS aan ku qoranayaa halkaas ayaa waxaan ku sii qorayaa wax la yiraahdo CLS aan leeyahay CLS markaan dhaho haddana waxaan leeyahay hoos ayaan u soconayaa halkaas ayaa waxaan ku qorayaa waxaan isticmaalayaa command ama character $san ayaan isticmaalayaa haddana waxaan leeyahay p ayaan leeyahay s ayaan leeyahay markaan s dhaho haddana v aan leeyahay halkaas ayaa ii soo baxayo koodka ayaa u baahanahay ii soo baxayo kabacdi halkan hadda waxa aan samaynayo waa new script weeyaan new script ayaan samaynayaa see ku ogaanayaa new scriptkan ayaa hadda aan samaynayo inuu shaqaynayo see ku ogaanayaa marka hore halkaas ayaan leeyahay run script aan leeyahay markaan dhaho waa aragtaa inuu shaqaynayo run script hadduu uusan shaqaynaynin halkaa calaamadan waa kana new script ayaan hadda sameeyey new script aan qoray oo cusub new scriptka aan qorayna waa kana intaas child item CLS character ama commandka ayaan isticmaalay scriptka aan qoray waa kana halkaas arkaysaan script cusub ayaan ku qoray okay marka waxaan samaynayo oo kale waa save gareynayaa halkaas ayaan waxaan leeyahay save ayaan leeyahay save markaan dhaho meesha markuu save ii soo baxo waxaan leeyahay first new script aan leeyahay bacdi waxaan ku save gareysanayaa desktopkayga ayaan ku save gareysanayaa save aan leeyahay waa ii save garoobay haddaba marka cashirkan maanta waxaa weeyaan sidaa u qori lahayd new script u samayn lahayd cashirkeena dambena waxaan samayn doonaa oo aan ka soo hadli doonaa marka aan new script sameyno rangareeno new scriptka dan inaan sameyno wax la yiraahdo execute script waan samayn doonaa next class ama classka kale nagu xigo execute marka cashirkan intaasuu ku egyaa waa cashir gaaban weeyaan new script aan sameynay cashirkeena kalena waxaan sameynaynaa execute script aan sameynaynaa sida script loo sameeyo ama waxaan qornay sidii looga shaqaysiin lahaa marka cashirkan caawa intaasuu ku egyahay haddii aad cashirkan ama galaaskan aad ku cusub tahay subscribe-ka noo saar like-ta taabo
common ka bixi commonkaada waa noo muhiim